بوبا قفك كفكر يوحو ما تعوني لها إنه هلو ما ها إنسان وحيوان حيوان كوهر أوجا جودا أوهر رادا وكفكر إنه بيعبو سامي كان بيها وكبنيو قفك أنت كفكر هي وحيوان الحمد لله حيوان كو فكرة الموضة ودالا وحو دونا ميل وناكسن وكنبت قالو إن لصور رعاوة وكقالي كرا حيوان صور رأي قف دلا ميل راحة أيو دون سيدا بيسطو كلا وضرتي ويقو قلتها ميل في عن ويسيحتها قفك كفكرة ينو صرير في عن هلو مكيف يمارة قبوجيه في عنو هلو أو هوس قالو أو مركان أو هوس يحضو ما ها إنسان وحيوان وحيوان كو فكرة وكفكرة مهددات باجرة والمصور ريا وحكصور ريا حيوان كحوق بدن محاد كسم إنساني قاشا ميسن سيدو قبح سني هالكيات كقلي خطو دقا بلانك بو دقا حيوانيا إنسان كفكرة يا واللي قدول يردوما أدو كليها خطتك لو حكى أنا سعلان ما هي إنسان وحيوان نوع علومات وحقوية قانون علومات بعد علمك التفكير الغريزي أما التفكير الحيواني والسيستم كأي حيوان كو فكران قف كستي وشن تاشي كفكريا وحيوان قف هلكن جوجا oo le maanta raashinku wuxuu ka dilaacay xamar u shaqo tag hargeysu ka dilaacay hargeysa u shaqo tag jabuuti waa meel lagaga toojiyay jabuuti u shaqo tag ka soo baxso kanada talay kanada imo ka baxso baari tago baari tag هذا النوع من التفكير وحيواني ما هو تفكير إنساني لبو وحويا درجة اللبات تفكير كاللبات محوياي والتفكير البدائي وضدك انت كسر سركعين سي عادي وفكرة سي ناتشريلا سي بدائي وفكرة وحويان waxaa dhici kara dagaal maxaa yeelaa waxaa dhici kara maaragtay dad baa heshiinaya maxaa yeelaa maxaan u baahanahay laxdadan waxaa dhacaya doorashooyin maxaa yeelaa noocaasina waa nooca tafkiirka waa tii kaymaha berigii hore marka laga soo baxay ee geedka loo hoos yimiday habkii loo fikirayay wey maxaa yeelaa imika uu laga fikirayo oo hore loo sii dejin tafkiirkana waxa dhada at-tafkiir al-bidaayi okay tafkiirka saddexaad waxa dhada waa tafkiirka ka sareeya waxay dhahdaan at-tafkiir an-nawci waa tafkiirka lagu sameeyay dawladaha war annaku ma kala adkaanayno annaku ma kala maarmayno maxaan yeelaa waxaan u baahanahay wax inteeno dhan noo dhaxeeya oo ilaashano oo nana ilaalisa hadiya dawla tafkiirka nawciga lagu sameeyay بريء يور الدولة دقولها سميني سحودة فوق قبسليسي سيدا بقرطين السعودية المملكة العربية السعودية وضيبات قبسلي عبد العزيز هذا dadkii uu adoomiyay reerkiisii buu dhibay ilaa maanta way xukumaan sacuudi oo dhan waa sida khaliij ko dhani wadanada maaratay barigii hore Yurub saabay han jirtay hatta caalam islaami amawiyiintii cabbaasiintii saas jireen laakiin dawlad xadiisa waxa la gaaray dawlad sidii nabigu sameeyay dadku ay sameystaan ilaalishadaan dhowraan koriyaan kobciyaan hareeriyaha ka joogan iyaduna ilaalisa kobcisa hareeriyaha ka joogta ومنافع متبادله مع الدوله هي ضدك اي ودليين عقليات داس waxa dhada التفكير النوعي dadka dhan ba inta isku yimaadeen bay shiraan dadku kama hadlaan maanta waxa ka dhacday magaalada muqdisho waxa ka dhacay qarax maxaan yeelaa aan gurmano lacagahan ururino aan iska seexano hadana maanta daad baa dhacay dhulkii roob baa dumi maxaan yeelaa aan ururino hayaacno maanta maxaa dhacay waxa roob xun baa Djibouti ka daay maxaan yeelaa han ururna hayaacna joogsan hadana maanta maxaa dhacay hada tafkiir bidaayi saadij wa tafkiir arudima wa muraaqa siyaasiya waxa loo baahan tafkiir nawci tafkiirka saddexaadi waa ka weey waa kan keenay waxan maanta aanu haysano weeyaan ay Yurub ka jira ee America ka jira ee Canada ka jira ee Australia ka jira ee Iran ka jira ee maarta Turkiga ka jira ee Malaysia ka jira ee عراق بارتي مركي صدام لقى دوميني ما بعد هالك واحد واحد كان وحويان وتفكير كبدائي هي تفكير كعقلاني أمبا نوعي تفكير سيد الأفراد اللي فكرة وحويان وتفكير كاستراتيجي واستراتيجية دو محيش شيء صح استراتيجية دو صدق شيء بشيء صح إلا جوشدو أو سؤال لإسويديو محان هاي محان ربنا محان هريالا maxaan nahay waa in laga jawaabo maxaan rabnaa waa in laga jawaabo maxaa in hor yuurara oo dhibaato ana waa in laga jawaabo kadibna la soo bandhigo solution xulul xalal kadibna xalasha la hirgeliyo iyada oo loo dhan yahay hadi hiya tafkiir istiraatiiji waa dadka waa weyn sidaas bay sameeyaan
sidaas buu Kissinger wuxuu dhahdaa Maraykanka berigii hore waxaa ka shaqayn jirnay inuu kor u socdo oo adduunka wada qabsado iminka waxaan ku dadaalnaa in Maraykanka la ilaaliyo inuuna soo dhaadhicin lianna quwado kale hirdinaya marka waa inaan awoodiisa ilaalino si uunan u soo dhaadhicin waa tafkiir istiraatiijiya Canada waxaa la ilaaliyaa rafaahiyada mujtamacu waa mujtamac la koriyay oo gaadhay darajatu rafaahiya inay dadku gaajoon ay hore u socdaan sidee loo ilaalinaya laga fikiraa waxaa laga fikiraa Israa'iil cadow badan baa inagu meersanaya ku iska dhaadhiciyeen sidee baan iyakana u duminaa annaguna u joognaa Iiraan waxay ka fikirtaa sidee baan u ahaanaa awood dibadda ku fidda gudahana iska ilaalisa dhexdana is haysataa Turkigu wuxuu ka fikirayaa sideen u noqonnaa lambar aan dib loo celin karin waxaa laga fikiraa sidaa Soomaalidu maxay ka fikiraysaa Djibouti maxay ka fikiraysaa tafkiir istiraatiijiya ma jiro tafkiirka istiraatiijiga jira wax weeyaan waan ka xunnahay waan cambaaraynaa tafkiirka istiraatiijiga jira Djibouti wax weeyaan noo joog ha naga tagin iyo maaragtay haybad la khadraay labadaa baa jirta Djibouti idan istiraatiijiyadda Djibouti ka jirta wax weeyaan waa istiraatiijiyadaas noocaasa Soomaalina waa noocaas ma istiraatiijiyad waxaas idan waxaanu imanaa ikhwaani fillah su'aal baan ka jawaabaynaa magaalada Muqdisho sidaad ogtihiin dhammaantiin sidaad ogtihiin Muqdisho waa magaalo taariikhiya Muqdisho waxay jirtaa wax ka badan 1000 sanadood Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed caasimadaha jira kuwa ugu magac dheer waa 2 3 Muqdisho waxay leedahay political geography siyaasiya oo gaar ah waxa ay dhex taallaa badda cas iyo badweynta Hindiya magaalada Muqdisho waxa ay tahay deegaan waxay ku taallaa hawadeedu uu dhadhaxaad yahay oo aad u qurux badan oo nolosha naajarku ay ka hirgalayso Muqdisho waxay ku jirtaa magaalooyinka kobaca bini aadamnimo uu si laxaad la uga socdo fidista dhismuhuna si laxaad la maanta uga socdo 2 malyan iyo bad ilaa 3 malyan oo qof baa magaalada xamar kaligeed degan quwad bashariya iyo magaalada fadhida dad kala duwan baa degan waa run dad baa u badan laakiin qabaa'il Soomaaliyeed oo kala duwan iyo magaalada soo dhisi doonto oo deganna waxyaalada ay gaarka la tahay waxa kamid ah Muqdisho kobac tacliimeed baa ka socda dhinacan ka eegay anigu waxa ka socda aqoontii baa kordhaysa walow kam ahaan ay kordhayso xagga tayada maaha tira ahaan jaamacado 10 ka badan iskuulo dhexe oonan aad u badan iskuulo sare oo aad u badan iskoolo hoose oo aad u badan iskoolo gaar loo leeyahay waxa u socda wax aan caadi ahayn baa ka socda Muqdisho waxa ka socda dhaqaale ta'siiriya geeska Afrika oo dhan suuqa bakaaraha la yiraahdo subaxa marka la furo sarifku meeshaas iyo dhaqdhaqaaqa magaalada meesha suuqa bakaaraha ka dhaca wuxuu ta'siiriyaa Nairobi wuxuu ta'siiriyaa Dar es Salaam wuxuu ta'siiriyaa Addis Ababa wuxuu ta'siiriyaa gobolladoo dhan wuxuu ta'siiriyaa uu raadiyaa dhaqdhaqaaq aad u fara badan oo geeska Afrika ka jira marka bakaaruhu waa suuqa aan iraahdo wuxuu noqon doonaa suuqa geeska Afrika amba Afrika oo dhan hagi doona dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya noloshiiba u soo noqonaysa waxayna ka soo noqonaysaa dadkiiba doonaya inay noolaadaan raba inay noolaadaan okay arinta iyadoo ay Soomaaliya ka jirto hadaba magaalada Muqdisho oo sida ay wax u socdaan oo dadku ay ta'hiilul hayaat noloshii rehabilitation ay soo sameynayaan ba had iyo jeer ay dhacaysa muhaddidaat waxyaalaha hadidaya amniga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxyaalada Muqdisho hadida amnigeega securitygeega maxaa kamida waxa kamida waxyaalada Muqdisho amnigeega hadidaya waxa kamida habka ay Muqdisho u dhismayso waa inaan fikirno bayra waa ko waxa waxyaalada hadidaya ee dhibaato ku haya amniga Muqdisho waxa kamida dadka siday iskugu socdaan aanan control ku jirin si caadi loo socdo waa arin hadidaysa amniga Soomaaliya gaar ahaan caasimada waxyaalada hadidaya waxa kamida oo muhaddid ku ah waxa weeyaan waxa waa furista ay furan tahay haday kor tahay iyo haday bad tahay iyo haday dhul tahayba ay u furan tahay كل شيء وحيالده هديده waxa kamida ta'addud alwalaa'at
dadku waxay leeyihiin walaa'aad abtirsiino badan dadku waxay amar ka qaataan xarakatu shabaab waxay siiyaan cashuur waxay siiyaan maaragtay iyakaa dhex gala dadka nabadgelyadooda iyaka casiliya iyaka ayaa hadday laba bayc busharo oo isdiraan iyaka kala walaah bay u leeyihiin dadka qaarkoodna dowladday walaa u leeyihiin dadka qaarkoodna dibadday walaa u leeyihiin oo wadano kale iyo walaa u leeyihiin waxa weeyaan waxaas oo dhan tacadud al-intimaa'aat wal-walaa'aat waa muhaddid amniya securityga tamaasuka daakhiliga ayuu keenayaa marka aan rabno annaku oo ah magaaladii muqdisho u fikirayna nabadgelyadeeda ila waa caasimadii qawmiga waxaa dhacaya in aan garanno inaan horta la imanno tafkiir aan kaga hortagayno waxaan dhacaya tafkiirka markaa Soomaaliya maanta yaalla waa maxay markaan dhageysto idaacadaha markaan akhriyo buugaanta markaan akhristo istiraatiijiyaadka aan dhageysto sida looga sheekeeyo xataa reer galbeedku markay ka hadleen amniga Soomaaliya in badan baan dhageystay in badan baan wax ka akhriyay waxay la soo baxday in ay yaalaan 4 shay oo afartuba ay qaldan yihiin koobaad waxa weeyaan التفكير على العشوائي للأمن إن أمرك أي أمني وحماده لا يسكو يماده أو لغا فكره إن سكيورتي لغا فكره عشوائي كمارتي مدحتوي سوق فكرته رئيس الوزراء سوق فكره قلده مخابرات سوق فكران عيدك سوق فكره بوليس سوق فكره قلوين كمارتي maxaan ku dhahdaa mujtamaca haduu jiraba bulshada rayidku ay si uga fikiraan odayaasha iyo ugaasyada iyo salaadiintu si uga fikiraan culimadu si uga fikiraan waa ashwaay ninba si la tahay waa tafkiir hawaa'i kaasi waa mid jira ani waxa ila tahay way leedahay amnigu sida maaha adi waxay kula tahay maaha amnigu wuxuu leeyahay khudad la dhigo khudad kale oo badiilul badiil la dhado saddex baa la dhigaa waxaa la dhigaa planning laga hortagayo amni xumada mid labaad baa la dhigaa oo ah ka bedilaya hadii ka uu xumaado mid saddexaad baa la dhigaa oo dhado hadii labaduba xumaadaan maxaa bedilaya ABCD baa la dhigaa okay waa ta koobaad taas waxaa jira tafkiir aani iminka maxaa dhacay iminkaan fikiraynaa waani iminka laxdadan waxay u bixiyeen culimada qaarkood at-tafkiir al-lahd lil-amn waa ka carabto kale okay soo sheeg hadii aad ka baqdid qof qarax sameeynaya hadaa waxa sameeyay soo sheeg waxa eeg waa amni lahdi ah laxdada baa la amniga taasina waxa weeyaan waa wax ku xidhan waqti amnigu waqti kuma xidhno Canada qarax kama dhaco laakiin amnigu uu soo jeedaa dawladdu way soo jeedaa shicibku uu soo jeedaa dad kaniisadu way soo jeedaa masaajidku uu soo jeedaa dadka oo dhan waxay ka shaqeeyaan amniga li'anno amnigu uu khusaya qof kastaba waa inuu caawa seexan karo uu bari soo toosi karo hawshiisa tagi karo baskiisa raaci karo كلنا مسؤولون عن الأمن دمانتين وحن مسؤول كنهي سكيورتي كان مسؤول كنهي مركز طلبات وقتها أردت وين التفكير الانفعالي التفكير كعرضك وصليسا حمر بقرح كدعي والود أويا مركز بالله دجينيا محسن لو يلي هذا مش تفكير استراتيجي كمان وانفعالي بعد هذا انفعالي ظاهرة صوتية سيستم كعربت ويان عربت انت عن اسلامك يا عربت عن كبرنا با انتاسا لان انا waxaan isku laaqnaa al-islaam wal arabiyya عربت dhaqankeegi baan qaadanay maadaama 30 sano timir ay nasiinayeen wayna arabiyeen hatta aqliyadeena amniga ahayd waxay ka dhigeen systemka noocan oo kale taa ee inficaaliga ah ee aan lahayn khudad iyo istiraatiijiyad aan lahayn waxa dhada wasaaradda arrimaha gudaha ee carabtu waa wasaaradda ilaalisa naqaska dadka taa amni ma waa sheegi doona dadka neefsanay taa waa ilaalisa وكتب تكتا ولا حرتا عقليه مخابراتيه هذا ومخابرات نمو dadka la daba guro la daba socdo tiina waa la qaatay waa la sheegay xamar systemka in la qaatay laakiin ma soconay systemkaasi waxa jira nooc farada at-tafkiir al-amni lil-amni ina security-ga looga fikiro si security-ga arintaasi horay baa loo diiday waxa la yiraahdaa bari baa shir lagu qabtay Kuwait waxa qabatay culimada tarbiyada waxay yiraahdeen maada yuriidu at-tarbawiyuna min al-i'laamiyin dadka education ka shaqeeya tarbiyada ka shaqeeya maxay ka rabaan dadka ka shaqeeya warbaahinta su'aasha waxa ka dhalatay su'aal kale maada yuriidu al-i'laamiyuna min at-tarbawiyin dadka ka shaqeeya i'laamka iyo warbaahintu maxay ka rabaan tarbawiyinta su'aasha saddexaad baa ka dhashay maada yuriidu at-tarbawiyuna wal-i'laamiyuna min as-siyaasiyiin maxay ka rabaan dadka tarbiyada ka shaqeeya iyo warbaahintu siyaasiyiinta su'aal afraad baa ka dhalatay
ماذا يريد الإعلاميون والتربويون والسياسيون من الاستراتيجيين؟ maxay intuba ka rabaan culummada istaraatiijikaalka idan su-aashii maxay kusoo noqotay ru'ya istaraatiijiya inay jirto fishin istaraatiijiya oo tarbiyadda lagu dejiyo tacliinta lagu dejiyo dhaqaalaha lagu dejiyo warbaahinta lagu dejiyo siyaasadda lagu dejiyo ummadda aragti istaraatiijiya leh ayaa najaxda walidaalika waxay dhahdaan al-umamu alcadiima ummadaha waaweyn tataxadasu can alinjaazaat alcadiima waxay ka sheekeeyaan wax soo saarka waaweyn saaka iyo shalay iyo daraad turkiga waxaa looga dabaaldegayaa baabuurkii ugu horreeyey koronto ku socday sameeyaan injaaz usbuuc koor bil koor waxay u dabaaldegayeen inay sameeyeen markabkii ugu horreeyey barmaaiya badda iyo biyaha isku xidhaya bariga iyo badda ee diyaarada ka dul doosayaan waxay u dabaaldegayeen qablaha inay sameeyeen madfac qaaradaha ka tallaabaya waxay u dabaaldegayeen ka hor inay fureen madaarka adduunka ugu weyn waxay u dabaaldegayeen inay fureen بريشكا أدونك وين إنجازات عظيمة الأمم العظيمة تتحدث عن الإنجازات العظيمة والأمم الصغيرة ضهير الضعيفة تتحدث عن الأشخاص ضدك كشاكا يعني هبلايوي بقرة دي بقر كيو كي وحنا إلى ضدك العتي ولا جاش طاي إنك جيبوت شوكله إنك جيلا العتي كقبصة خضرة حين بقى قبصتين وإني أويان سي أويا روسيسو وإني هسا سي وحي وصو سيديسو أم بوصو سيديو هذه العقليات الصغيرة وإن لا كالي هبل أجيجوتا كندا جوجا كاله حنكو يردي بناي حق قتاقا صدق كون ضل كاله أنا بحصيرنا وأرض السيداي هدو ترى عنها لقطة هذه الأمم الصغيرة الضعيفة إخواني في الله تفكير شنادي وقدام بيوا محي وكهلوبا هي التفكير الشامل الاستراتيجي يلا دجيا تفكير شاملة واستراتيجية ومفهوم كأمني قالوا صار أمني ومحاطة هي بارت الله الله سكيورتي محويه سكيورتي ما قرح بعوايا ما هي قرح مريكان بو كدعي ادوك دولته وحو بدن قرح با كدعي علوسا قرح بو كدعي كرا مغاله والبو كدعي halkan ku nool كدعي فرانس بو كدعي انجليز بو كدعي قرحو استراليا بو كدعي قرحو waa dhici kara laakiin haduu qarax ka dhaca magaalo yar oo ku taala gobol wadan horumar gaari kama dhigno wadankaasi amnigiisa halis buu galay li'anno وأرين يرو دعدي أريتاسي ولا حلقرة محاجر محل وحلنا وحيا مفهوم الأمن الشامل مفهوم الأمن الإنساني وحلو به إياه يالا أحبابي في الإسلام ولا ليال وحويا مركو إلهي سورة النحل كجور رمي قرية وحولي كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان انتهوا إلهي لأفرسه قرية وهجت ومقال وقبل ودولد وحضارة وقل ما حي صفات لها آمنة وأمن سكيورتي مطمئنة ولا دقيقة تقوي دقيقة ويحصلان نول بشقدي سوتها سكول كي سوتها دكتور كي سوتها مارتي مسكيت كي سوتها كنيسة دي سوتها مطمئنة يأتيها وحا ماد رزقها وحا أباهين تدكو رغدا يساقو كلا قولهين وفرة بوحة أو كيمادا من كل مكان الدون كودمو كيمادا هذه المفهوم سورة النحل باكا شاكاليسا إلهي مركا وحكا ورمي إني دادك قاركود اسكدو ميان وحاسو كلا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي هاد إيا جروح إسرائيل الخوف والجوع مكة لهران الجوع والخوف عبسدا إيا قاجدا إيا عبسدو اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع رسولك إلهي بكنا بدقلي صلى الله عليه وسلم مركا جوع إسلا كان عبسدا بدنا يدا كانت قاجدا ودنك الدقالة كدعان قاجة كدعدا ودنك قاجة كجيران الدقالة كتصعدا هذا ومعادلة عادية جدا إلهي آيات كذبوا حكا كان ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون إلهي وحو صدري والأمن الفكري أمن الفكري رسول بو صدري ويبينيين إلهي مركا عذاب بكو قاضي يكو ظالمين دادكو انت ينهلين أمن سياسية يأمن دقالة يأمن وإن هلان أمن فكرية أمن إيديولوجيا وإن هلان أمن عقدية وهم ظالمون مركابو إلهي هداد وحا قرطان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مركا عنا وحو إلهي نسيي وبوحيي يضو حلالا ومعان عنا وطيبة وإلهينا هدنقة ونعمة إلهية
هداتهم كو إلهي عابدية تبارك وتعالى إخواني في الله كوفي عناني كدعو لبدي يكون مركز تاريخ روحي نيجي أهانجري مذوباية جمعية قرمها كده حيث كان جري سكرتيري جنرال كان جري جنرال سكرتيري كان جري سكرتير عام كان جري بارتي نكاس حقيقة جود كأها وحكجيدي خطبة جمعية قرمها كده حيث وهو شرحي وحلو يقانو أمن الإنساني إني بني آدم وباهين سكيورتي سوسيال أول واحد جري واحد أمن الدولة إلى الدولة الله إلى حدود هذا هودي هذا يبدي هذا وحامر كده ملك يعني أمن الأفراد إلا إلى ضدك بني آدم كه وحني وحالي وحن صح معها أمن أنت وكبل عليه وأم هي أمن ولد أمن جوا والشمول بدي وإنساني وإن بني آدم قدر الله إلى مركان استراتيجية لدى عالم يسجى مركان دجنو أمني ما سمعنا marka aan sameeyay istiraatiijiyad jahliga la dagaalamaysa oo dadka cilmiga baraysa amni baan sameeynay marka aan dadka u dhisno jidad iyo dikado iyo dariiqyo la mari karo oo baabuurada iyo maartay raadiyatu nolosh biniya tahtiya dawladda hoosti marka aan dhisno isku xidhno oo sameeyno maartay shabakatu macluumaad ittisaalaat communication waxaan sameeynay amni baan sameeynay marka aan caafimaadka ka shaqeyno oo dadka labadiiba la sameeyo caafimaadkii ka hortagga cudurrada iyo cudurrada in la baabiyo labadaba marka la dagaalano waxaan sameeynay maartay amni baan sameeynay marka aan dadka umrigooga laga fikiro inuu dheeraado oo 70 iyo 75 uu gaaro waxaan sameeynay amni maanta 45 jir iyo 50 jir bay Soomaalida ku dhintaan wixii rasaas u deysaba العمر المتوقع جيبوتي نشري كوتون iyo 50 jir rag iyo haweenku intaas ku dhintaan jimcida qurmaha 2015 bay soo saartay idan waxay taas ku tusaysaa ikhwaani fillah su'aashan aan ka hadlayno amni markuu ka hadlay wuxuu yiri amnigu waa baahida ugu asaasisan ee qofka bini aadamkii u baahan yahay nolosha daraadeed mafhuumka amniguna waa maxay buuri waa inuu qofku ku xasilo meesha uu degan yahay waa inuu garto inuu yahay qof meesha laga lahayn qof meesha loo sheeganayn qof meesha laga ceshanayn qof meesha laga raafayn qof meesha loo diidayn qof meesha ku noolaan kara qof meesha horumar gaarsiin kara qof meesha horumarkeega ka faa'iideysan kara qof meesha le qof meeshu ay leedahay هذه العقلية يرى اطمئنان وحصلها marka xasilada maxay ka imanaysaa confiance siqay ka imanaysaa siqadu waa maxay waa confiance waa kalsoonidu xagee ka imanaysaa waxay ka imanaysaa wuxuu ku kalsoon yahay in ayna ku dhacayn baahi inayna ku dhacayn gaajo inayna ku dhacayn cabsi inayna ku dhacayn dib u dhac inayna ku dhacayn cunf argagixisnimo in laga hor imaneyn okay su'aashaas quraanka ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu inooga jawaabay arkeenay suuratu an-nahl حديث النبي عجيب صلى الله عليه وسلم نبي وحوري عليه الصلاة والسلام قفك من أصبح منكم نك إنك مذا أو ساك واجو أبريو يسقى أو آمنا يا آمنا نبت قبا سكرتي هروك نبت قبا في سربه جريسا في سربه ديجان كيسا في سربه ودن كيسا في سربه دولة كيسا في سربه عالم كيسا ضد هالكا قارسية العالم كله سرب الإنسان ابن الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الوطن هو هالكي ودولكا ودن ودن كيني وي هدي ودن كودن نبدي كدي عويدو أوكي ما عنده دراسة نخرية الجيريا أم الجزائر هدي أي كدع عضو قرح يمارتي دقال سكايو maxaa wadanka ugu horeeyay ee halis galay waa hage waa Faransiiska haduu Faransiisku halis galay maxaa halis galaya Yurub oo dhan Yurub hadii halis gasho maxaa halis galaya ammaanka adduunka oo dhan waa Algeria hadii wax ka dhacdo idan waxa la gaarsiiyay amniga halka idminaanki rasuulku muxuu leeyahay man asbaha minkum aminan من أصبح منكم نك إنك مذا أمض إسلام كبني آدم كمذا كم بدبادة سربيسا وكو مفهوم كشامل كأمنية إنسانية وكوفي عنان كورمي لابد يكون كن يأفر بقول السنة كورب النبي نبريا دين تلوان هاي سناؤن معافا في جسدي الأمن الصحي عافمات كجركيسو نبوحو عافمات قبا جرهان جركيسو عافمات قبا أوكي حمد ير أيا جيبوتي ليسي
كمان بقول القف يعني هدان بين كلا ردت كتو كبدن ما لين والبا waxa ku qoran maxaan ku dhahdaa maartay needka waxa ku qoran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hiblaayi hebel baa gooday hebel baa gooy maxay ku go'een 5 6 7 qof afar saddex maxay ku go'een xumadu hagee ka imatay la diraasata huna diraasa ma jirto dhakhtaradu ma fikirayaan liana dhakhtaradu waxay ku fikiraan inay horta dawladdu dejiso siyaasad amniya oo laga hortagayo cudurrada ma jiro oo problem weyn baa wadanka ka jira marka dadkii maxay ku dhimanayaan qabuurihi baa buuxsamay qabuurihii la oran jiray beekaaga 12aad beekaadus imtala'at an bakrati abiha 7 sano gudaheeda 7 sano ayay qabuurihii meel qof lagu aasay ayna jirin annaas yamuutuun taabuur bay ugu jiraan geerida ilaahay baa laynaya baa dadka laga dhaaqnaya ilaahay waa looga dhow yahay layntooda gaajaa laynaysa cudurraa laynaya waxaa laynaya ya'si murugo waxaa laynaya calaacal waxaa laynaya oohin waxaa laynaysa meel ay maraan markay waayaan inay iska dhintaan haakada yamuutuun kitaab waxaa jira dhacdo alcaalamu alislaami bayna alxirmaan watakhalluf caalamka islaamku dhex yaala xirmaan inay waxay cunaan bahaysan iyo takhalluf okay mushkiladda aan ka hadlayna markaas waa maxay waxaan ka hadlaynaa qofku allaba inuu haysto jidhkiisu inuu caafimaad qabo waa security cindahu quutu yawmihi waa inuu haysto wuxuu cunayay maalin walbaba hadduu haysto rasuulku muxuu yidhi adduunkii oo dhan baa loo keenay hada huwa almafhuumu shaamil lilamn marka dowladuhu markay fikirayaan dhalinyaradu maxay uga mid noqonayaan xarakatu shabaab maxay u galayaan muxuu qofku u noqonayaa mutadarrif saddex shay buu noqonayaa diraaso anigu aan imika aan wado waxa ka mid ah waxa ii soo baxay qofka Soomaaliga ah waxyaalada u keena inuu noqdo mutadarrif xaq jirnimada maxaa ugu wacan saddex shay weeyaan kow alxirmaan baahida gaajada waxaas oo dhan waa kow laba waxa ugu wacan aljahl cilmi la'aanta aqoon la'aanta bas qofka madaxiisa laga buuxinayo 2 3 10 6 ayadood inta kale laga mamnuucayo تفاسيرتك kale loo diiday ra'yi qura dhageyso aaraada kale ha maqlin aqwaasha culimada ha dhageysanin afkaarta culimada maalinta waxa dhaqaa culimada waxa dhaga dunya ee culimada aakhira dhageyso baa laga leeyahay marka waxa baa la gaari baa laga dhigaya dhinaca faraska laga xidhay laba dhanba baa laga dhigaya meel adduun arkay ma jiro arinta saddexaad waxa weeye albadaawa والدخول في القفص badownimada dadka baadiya ah oo maaragtay nolosha ku adkay baa waxa ku dhacay sadamaad xadaariya waxa ku dhacay shock baa ku dhacay argagax ilbaxnimo yaa ku dhacay waxay dawladdu waxay heleen yar oo 60kii oo madani ah markiiba way dhacday tu askari oo wararsan baa imatay markiiba way dhacday waxa uu imatay dawlad la'aan iyana waa la sii wareeray waxa uu imitay wadaado waalan baa mar helay way sii waaleen waxa uu imitay maartay qabqabalayaal way wareeriyeen wareer ummadii markaa maxaa ku dhacay yas waa isku mid inuu noolaado iyo inuu dhinto inuu geeriyoodo iyo inuu noolaado labadu way u sameeyeen marka waxaas wuxuu abuurayaa dad wada adag oo wada mutakhallifin ah oo raba inay wax dumiyaan walidaalika ayuha alikhwa qofku inta hadduu haysto wuu baxaya marka xamar maxaa laynaya qaraxyaa lagu leeyahay dadkii maanta dadka dhintay walaalayaal dhalinyaro jaamacadda ku socotay macnay leedahay ninka intuu hub soo ururiyay laynaya meelshii baabuurku uu maartay cashuuraha iyo lagu qaadayay kala beerkii intuu soo joogsado ugu talagalay waqtigii ay dadku dirwada ugu badnaayeen inuu qarax sameeyo هذا التفكير الاستراتيجي للتهديد الامني wuxuu qofkaasi doonayaa wuxuu inoo diidan yahay inaan noolaano wuxuu inoo diidan yahay inaan mustaqbalka aragno wuxuu inoo diidan yahay inaan dad noqono bal wuxuu inoo diidan yahay inaan rajadu inaga baabinaya ciyaal yar oo jaamacadda banaadir ku socday intooda ugu badan oo bas ka buuxay oo habla iyo inamaba leh oo doonaya inay mustaqbal sameeyaan hooyo iyo aabba suuqa fadhiyo naftu ka baxdayna ay dhalinyar u soo gasheen buugaan u iibsheen jaamacadda lacag ka bixinayaan oo ay leeyihiin wax noqda si aan annaguna wax u noqono ilmo yar oo mukhadram ah oo ka fikiraya inuu wax isku taro qoyskiisina wax u taro kuwa soo socdana wax u taro mujtamaciisana wax u taro ilmo yar oo ka fikiraya in nolosha laga hor qaado la qadar jabiyo oo la maartay la qalbi jabiyo oo la jabiyo kuwa saa ku fikiraya wa a'daa wa adu waxay cad u yihiin wadanka iyo diinta iyo dadkaba marka
kahortaggeegu uma baahno hadal waan ka xunnahay uma baahno waan canfaaraynayna wuxuu u baahan yahay in mafhuumka shaamilka alla dejiyo arrinta cajiibka markaa wax way ikhwaani fillah xadiiskii waa kaas qur'aankii waa kaas waaqicii waa kaa adduunku siduu fikiraya waa kaa annaka maxaa inaga dhigay dad si kale u fikira dad markaan soomaaliya joognana ka fikiraya un inaan noolaano markaan jabuuti joognana ka fikiraya inaan noolaano somaliland ka fikiraya inaan noolaano oon iska noolaano un inaan ahaano maxaa inaga dhigay limaada laa nufakir maxaan u fikri laanahay limaada laa nasuur maxaan revolution u samayn laanahay laa nuriid waxaan ma rabno maxaan oran laanahay limaada su-aasha waa inaan isweydiino walidaalika ikhwaanii fillah waxay dhahdaan maanta culummada waaweyn ee amniga ka shaqeeya biduuni tacliim xaqiiqi haddayna jirin aqoon dhab ah amni ma jiro aqoonta dhabtii markaa waa maxay waa aqoonta aan ahayn aqoonta sacabka u tumaysa qof aanan loo tumin dictateer hadduu qofku aqoonyahanka sacabka u tumayo aqoonyahan maaha aqoontu waa inay ku xorayso karle markis wuxuu odhan jiray macrifa qaliila tajcaluka cabdan ta aqoon yari waxay kaa dhigi addoon macrifa mutawasita tajcaluka nisfa cabdin macrifo aqoon dhadhaxaadana waxay kaa dhigi nus addoon ah macrifa xaqiiqiya tajcaluka xuran markaad heshid macrifo dhabana waxay kaa dhigi qof xoray kaa dhigaysaa idan laabudda min atacliim labo waxaa ka mid a waxyaalada qofka bini aadamka securitygiisa ricaaya sixiya inuu qofku ka baqayn in jira ay ku dhacdo oo ay kaneeca dili karto kaneeco amba uu dili kara maxaan ku dhahdaa xumadii amba ay dili karta maxaan ku dhahdaa shuban yar amba maaragtay cala taacuun wax adduunka ka dhammaaday inuu ku dhici karo amba sida iyo aidis uu ku dhici karo waxaas qofku waa inuu ku xiroobo laabudda min aricaaya waa inuu qofku haysto ilaalin caafimaad ما ها عافمات هو وحلا يقانو دكتور كاتجي يقدر كريم بكوقري ليس هذا رعاية هذا تسمى علاج والقدويلية لكن رعاية صحية إن لو إلى عافمات وإن جرتو أنا أفراد واحد هذا وإن جرتو قفكم مركو سوقعه إنه كسوقعه جوري ونكسر سكن كريم ما يقولن جوري بلار ما يقولن جوري عليلي أنا ما يقولن جوري قصري أماها سكن كريم guri u qalmo inuu qaar waxay qoraan sakan laa'iq deegaan u qalmo qofku inuu gali karo hawle la kala rag iyo haweenku kala seexan karaan waalidka ciyaal kala dheeraan karaan meel television ay ku daawadaan leh meel wax ku akhristaan leh marka waa inay haystaan waa waxyaalada la dagaalama amni xumada ka mid tahay amni baan ka sheekeynaa been baan sheekeynaa waxyaalada waxaa ka mid ah damaan xurriyatu tacbiir dadku inay hadli karaan حرية التعبير وإنها هيستان وإنها هذل كران وهذل كران سدا أي دونان وحيدا هذان وإن لقى إلى قفك كله حماية الإنسان من الإنسان قفك كدلية وإن لقى إلى قفك ماذا حكاها قبسانة وإن لقى إلى قفك كحرية جريتان كاغا هي إن الدول نقطي وإن لقى إلى قانون وإنه جركا إلى دولة حماية الإنسان من تغور الدولة دولة ورابين لقط وإن إلى وحماية الإنسان إن إنسان كان لقى إلاليو إنه دولة دومية سبنا كل هذا يحتاج إلى أمن وحكلوا أمن كاملة إن دتك لقى إلاليو محي إن لقى إلاليو وحلو يقارنه التدهور إن يبربرتو إن الدمان بيئة إنفيرونمنت إن الدمان ولذلك وحي علماء الأعلام أمن مركب ما أنت لقى هالليو وإنه قف أمن فينانسيا وإنه على الأقل كونتات وحوجران وإنه واحد لا صوب بحي كرو وحب بحين كرو وحيبسن كرو وحقادن كرو هدول هيسن أمني مجرو عقلينا كسرنا أمني ما سمعنا ضد كاجونيا وبين ويان مخابرات اس جيبوتي هي مخابرات كحمر كجرة هي كوة سوماليلاند كجرة هي كوة إثيوبيا كجرة لا يصنعون أمنا مع الخوف ما سمعي كران أمني يدو أي جرت عبسي لا يصنعون مركا لابد من الأمن المالي قفوا إنه مال هان وحيشتو لبو أمن غذائي وإن تدخل وحي عنان هايستان وإن الراشين هايستان وإن أفكا وعقلين كران وإن علوشو صوت تيرين كران لا أمن بدون ذلك هذه وحالة وهي أمن مجرو وحالو بهي إن يددكو هايستان سكيورتي عافي ماذا ماها ورقات بيان الله سميه وضدك اللعال يقويو والعقتها قولي لقد استماها هذا كلام فارغ لكن هو أمن صحي وضدكو هايستان الأمن الشخصي قفكو إنه الشخصية دي سو أمان قبطو الأمن المجتمعي
mujtamac waa inuu kala ammaan qabo waa inay reerka qurac uu ka nabad galo reerka dhagaxna waa inuu ka nabad galo reerka dhul waa inay shucuubtu kala nabad galaan waa inay dad ku noolaadaan salaam ijtimaaci salaam bulsho waa inay ku noolaadaan waa ina aws iyo khasraj la mideeyo waa ina ansaarta iyo muhaajiriinta la mideeyo waa in la sameeyo alwatan wadan hooyo ah oo kullu naas yaciishuuna fiihi walahu wamacahu wabihi wadan dadku ay ku dhex nool yihiin ay u nool yihiin ay maaragtay ay dhisayaan isaguna dhisaya waa in la sameeyo kullu dalika yaxtaaj ila mafaahiimta inaan bedelo yaa loo baahan yahay alamni siyaasi waxaa loo baahan yahay amniga politicalka inay dadku axzaab samaystaan oo xisbigu wuu dhashaaye la oran waan ku ictiraafaynaa khaladada ugu weyn afrika jiro maxay xisbiga waxa uu leeyahay kaana waan ictiraafsanahay kaana ma ictiraafsan man acdaaka xaqu al-i'tiraaf qofku markuu dhasho acte de naissance baa Djibouti la siiyaa waxaa la siiyaa shahaadatul miilaad uu dhashay uu xisbigu markuu dhasho waxaad siinaysaa waraaqadii dhalmada laakiin ma weydiinaysid maxaa u dhalatay waan dhashay dastuurka dhalayay waan dhashay khalaas marka waa inay ictiraafiyaan dhashay marka adduunka lama arag xisbigaasi muxuu dhashay ilaa adduunka saddexaad ma ahine dad baa Mareykanka laba xisbi ka jira Mareykanka boqolaal xisbi ka jira laakiin laba xisbi oo dadku kala xidhmaan waa inay jiraan boqolaal xisbi laakiin laba ma soo akhiran la yasixu illa sahih Canada waxa ka jira boqolaal xisbi laakiin laba xisbi saddex xisbi muhiima adduunku waa sida Israa'iil waxa ka jira boqolaal xisbi laakiin afar xisbi waa xoog badan Turkiga waxa ka jira 20 xisbi laakiin 5 xisbi waa xoog badan هذه الحياة لكن لو ما ركر حسب قام بيجرا كاسنا بيجري كروي لا وحاس أفريقيا مكجرا الأمن السياسي بلوباي إخواني في الله هذا ولا عليها ضدك حمر وحلينا يا إني شايع ضدك حمر وحلينا يا دقون نيمة الدولة ده يحول النيمة ضدك مدح قبائش حكومة أو أنا أفكرين وحاس أنا كفكرين يا لينا يا وحلينا يا وحكمي ذا علماء أنا ضدك كتر بيدينا رأي قرى أو كتب بيدينا إن جيران آراء بدن سيدا كتابك وقري ابن رشد في المسألة أقواش أن سود بدقينه قول ضدك أشاقيا ضدك وحلينا يا إخواني في الله وحلينا يا عدو قد يبده وأن عندها كقرسن كريم وإماراتك وهو الرأي كي دوني هدونه كي ديدي هديدو كواس علينا يا ضدك وحلينا يا عدو استراتيجية ummadda Soomaaliyeed dadka waxa leynaya xumadda Djibouti ka jirta waxa keenaya waxa weeyaan jaahilnimada aqoonta cilmiyeed aqoonta dhaqaale aqoonta siyaasadeed ee waxaas oo dhan ka jirta waxaas oo dhan baa dadka leynaya ikhwaani fillah marka maxaa la rabaa waxa la rabaa laba shay oo quraata iyo la rabaa شيء ugu horeeyo waxa weeyaan al-hurriya dadku inay xuruubaan shayga la rabaad ee la rabo waxa weeyaan in la sameeyo barnaamij loo dhan yahay oo aan dawlad ku xidhnayn oo mucaarad ku xidhnayn oo shacbi weynuhu uu leeyahay oo istaraatiijikala inta laga helayo waxaan ku jireynaa xalaqada mufriqa ah ee aan dhamaanin insha Allah ta'ala dhamaantii waa mahadsantihiin waxaan naga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh